barta uu ilayska cadceeddu ugu soo horgaaro Afrika waxaa ku taalla Obon. waa magaalo saldhig u ahayd ilbaxnimo hore oo Soomaaliyeed. degelbaarayaasha iyo sooyaalyahanaduna isku raacsan yihiin in la soo degay 16 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise. gumaystuhu wuxuu ula baxay magaca Dante. Soomaalida maanta noolise waxay u garan og yihiin degmada Xaafuun ee gobolka Bari. waa jasiirad u ekay uu eebba ku galladay khayraadka kalluumaysiga iyo macaadin ay ka mid yihiin cusbada, luulka iyo dhuxul dhagaxda. deegaanku wuxuu sidoo kale leeyahay dhul daaqsimeedka oogada ah ee dul Xaafuun. horaantii qarnigii 20aad wuxuu Talyaanigu Xaafuun ka hirgeliyey warshad soo saarta cusbada, taas oo tan iyo sannadkii 1950 ahayd isha koowaad ee cusbada dunida. warshadda ayaa sannadkii soo saari jirtay milix gaaraysa 200,000 oo metrik tan. mashruuca cusbada wuxuu ka koobnaa 2 dekedood, jid tareen, garoon diyaaradeed, goobaha cusbada lagu beero iyo kuwa lagu warshadeeyo. dawladda Talyaanigu iskama amaan halkan iyo Soomaaliya. halkan waxay ku soo gashay magac shirkad ganacsi oo la dhaho Shoshito Salina. waxay dadka u tuseen inay yihiin ganacsato, inay dalka maalgelinayaan, inay intaqaanaa deegaankan ku xirayaan caalamka, dadkana ay shaqo siinayaan. runtii wejiga koowaad wuu guulaystay. ilaa 10,000 oo shaqaale ah ayaa halkan la isugu keenay. lacag ahaan iyadu waxay ku kacday qiimo dhan 36 milyan oo liire oo waagaa jiray. 1916 ayay mashruuca ay bilaabeen. mashruucaasi wuxuu socday maxaan ku raahdaa muddo 15 sannadood ah ayaa mashruucu dhismuhu socday. ujeeddadu waxay ahayd in milixda xagga lagu beeray la soo qaado. sidaa daraaddeed meesha waxaa u dhaxaysa baddii waxaa la saaray bridge line wax soo qaada milixda oo keena iyo line milix doonaya. wayna isdhaafayaan, waxayna ku shaqaynayaan maxaan ku raahdaa electric. daartaan aan idinka sheekeynaya Brinjo Ballo waxay ahayd daarta maqaasiinka ah ee lagu soo shubo milixda iyana sii gudbisa oo u gudbisa sar halkaa ku taallay oo kaydka ahayd oo loogu talagalay in lagu kaydiyo maraakiibtu intay maqan yihiin wax soo saarka. warshadda cusbada ee Xaafuun waxay howlgab noqotay muddo laga joogo 82 sano ka hor. waxaase weli la dheefsadaa kaydkeedii cusbada oo ah kan ugu weyn xilligan guud ahaan geyiga Soomaalida. Talyaaniga markii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ka tegey cusbo badan oo kayda uu qaadi lahaa. marka wuxuu sameeyay ilaa 30 buur oo buurtaas oo kala ah. waa la dhameyn laayahay halkii buur kaligiis wala waxaan u malaynayaa buurkii kaligiisa 20 tan ka badan. ayaanle Maxamed Muuse waa gudoomiyaha xogsatada cusbada ee Xaafuun. maalin walba isaga iyo saaxiibadiis waxay u soo shaqo tagaan tuurarka kaydka cusbada ee Xaafuun. waxaanu ka shaqaysanaa milixdaas goobatan hadda aynu joogno oo ah beertii ugu weynayd Soomaaliya ee milixda. kaydkii weeye kano. beertina waa taa aagaas aynu joogno waa beerihii. inkastoo hadda beeruhu shaqaynoo kaydkii kaliya la isticmaalo. halkaasaanu ka shaqaysanaa 120 qof weeye dadka ka shaqaystaa. lama kala laha. waa shaqo aad u adag oo jafma ah weeye. haddii milixdaas aad aragteen oo buurta noqotay oo waxa weeye qofku 12 maanta hadduu jafaayo uu waxa yar ka jibin karo. shaqadaas adag weeye. godkaasoo mararka qaybtood wuu dumaa. dad baa waxyeello ka soo gaadhay, dad baa ku dhintay, dad baa ku jajabay oo dhaawac ah oo hadeer muxuu hayayaal. marka waxyeello badan oo wuxuu leeyahay dubitaankaas ay sabab u yahay. aniga nafsiyan ma waa beeruna waa wax soo saar waa lacag samayn weeye. marka waa aad baan u naawaleynaa qolooyin kasta oo noo timaada ama wax naga weydiisa waan u sheegnay dhowr qolaan maxaa ahay qolooyin xataa tijaabo qaaday baa jiray. markasta rajaanu qabnaa in qolo samayn doonto dhaqaale haysato fangelinaysa inay noo iman doonto waa ku rajo weynaa. dad badan
oo macallin Sanyare ka mid yahay waxay aaminsan yihiin in mashruuca cusbada ee xaafuun ay ujeedooyin kale oo gurracan ku hoos lamaanayeen. talyaanigu marka barnaamijkaas isaga wuxuu ahayd gabaad uu ku gabado laakiin dhabtii halkan wuxuu ka guri jiray dahab god halkaa ku yaallo muuqda jaarkolku ka guri jiray wuxuu badan kala bixi jiray biiralka waxa loo yaqaan lu'lu'a Soomaalidana shaqooyinkaas uu qabanayo oo ka baxsan milixda Soomaalidu shaqana kuma lahayn ogaanshana kuma lahayn talana kuma lahayn oo ma ogaan karin waxa laga qabanayo. xaafuun waxay ka mid ahayd magaalooyinkii gebi ahaanba ku burburay bixisadii tsunamiga bishii Diseembar ee dayrtii 2004. xaafuunta maanta waa magaalo cusub oo tsunamidii kadib dib loo yagleelay. inkastoo mahadhooyinkii soo maray badankood ay dib uga soo kabsatay, xaafuun waxay qayb ka tahay magaalo xeebeedyada Soomaaliyeed ee sooyaalkoodu fog yahay isbedelada waayaha iyo duruufuhuse ay sheeqiyeen.